hagaag waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkeenii la magac baxay qurbajoog oo ah barnaamij aalaaba aan uga hadalno qurbajoogga Soomaalida barnaamijkan maanta waxaan si toos ah idinkaga soo tabinaynaa dalka Turkiga caasimadda labaad ee Istanbul horta marka hore waxaa ila jooga oo barnaamijkan maanta igala qayb qaadanaya xirsi nuur warsame oo ka mid ah runtii Soomaalida wax badan in muddaana joogay dalkan luqadana ku hadla Turkiga xirsiyow horta barnaamijka ku soo dhawow waayahay waxaan saaranahay mid ka mid ah doomaha dalxiiska magaalada Istanbul bal horta waxaad noo micnaysaa halkan aan joogno iyo intaan u gudgal barnaamijkiisa kale halkan aan joognaa waxa weeye waa magaalo madaxda labaad ee dalka Turkiga Istanbul qaybtii Europa ayaynu hadda joognaa inagoo hadda u soo gudbi doonaa qaybta Aasiya waxay labada kala qaybiya kubri weyn u dhaxeeya badda ayaa kala qaybiya Aasiyada iyo Europada waa maxay Aasiya iyo Europa ma magaaladii baa loo kala qaybiyaa Aasiya iyo Europa waxay u kala qaybsan tahay magaaladu qaybta badda ayaa kala badha waxayna u qaybsan tahay baddaas kala badha ayaa qaybna Aasiya tahay qaybna Europa Soomaalidu xaggee degan tahay magaalada Istanbul horta bal wax yar nooga sheekay wallahi Soomaalidu horta runtii waxay degan tahay meelaha qaybta Europa ay degan tahay xaafadda Israa'iil Kaafi ayay degan tahay waa meel bariga hore waddanka la yimi dadku may aqoon ma lahayn laakiin hadda waddanka wala dhex galay guryaha la kireystay nolol fiican lagu noolyahay wala la qabsaday xaaladda waddanka wax dhibaato oo kala soo kulmo siyaada ay ma jiro dadkii bay isdhex galeen waxaa hadda helaysaa oo heli kartaa Turkiga af Soomaaliga ku hadlaysa waddanka ayay arkaysaa dukaamada haysata marka dhaqanka waa la isdhex galay waana la fahmay wax dhibaato ah oo ku qabnaa hadda waxaynu maraynaa bartamihii badda ayaynu maraynaa waxaynu kusoo dhaqaaqnay qaybtii Europada hadda waxaynu u sii jeednaa qaybta Aasiyada baada adigu hadda 30 daqiiqo ayaynu gaari doonaa badweyntii kala baraysay Aasiya iyo Europa ayaynu maraynaa wallahi tirahaan horta magaalada Istanbul waa magaalo ay soo maraan dad iska socota oo taraasida aan wax yar ka dhex galo waxaan rabaa daqiiq waxa ku dhacay waa aadaankii salaadii duhur ayaa la joogaa marka lasadeeda waxay ku sinaysaa inaan dhex joogno dal muslima ayay dareenkeeda leedahay waxaa laga yaabaa dadweynaha si fiican u maqleen badda ayaan ku dhex jirnaa guryaha aad hadda arkaysaan ayay mid ka mid ah ayuu ku yaallaa masaajidka aadaanku hadda u ka yeerayo waayahay marka runtii waxaan filayaa islaamnimada ayaa ka muuqata aadaanka markaa degiina ku maqashaan waayahay weli waxaan bartamaha uga jirnaa waraysigii aanu sida toos kale idinkaga soo tabinaynay magaalada Istanbul waxaan hadda taagannahay bartamaha magaalada faras magaaladeedii goobtan xirsiyo maxaa loogu yeeraa horta marka hore magaalada xaafadda waxaa la yiraahdaa taqsiim baa la yiraahdaa waa xaafadda centerka magaalada ku yaallo centerka magaalada marka taqsiim square baa la yiraahdaa meeshan aan taagannahay marka waa meesha lagu qabto xafladaha Christmaska iyo lagu qabto iyo Happy New Year lagu qabto habeenkaasi waxyaalaha cajiib ayaa ka dhaca meesha waayahay afka Turkiga waa ku hadashaan filayaa afka Turkiga adigu kulli xoogaa waa ku hadlaa muddo dheer maadaama aan joogay 2 sano iyo xoogaa 3 sano iyo xoogaa Turkish Nerede mi Türkiye? Nerede Türkiye? Memleket? Tarlabaşı. Karabaşa. Tarlabaşı. Allah. İstanbul. 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 Istanbul ya? Evet. Muxuu leeyahay hadda
أنا اسطنبول وتركيا كانوا من تركيا وحول شيء أنا حاب مجال لي دنابهجة. Okay. أيولي. How much this one? So 1 lira 1. Yeah. شيل ويان بيدي شيل العقد هذا كذا. Okay. حبض ما كقاعد ها. Aramak keşke hiç görmeseydim kalbimin sahibini ömrüm Turkish song. bekleseydim boş kalırdı şu kalbim hiç kimseyi sevmezdim belki bugün yarın da bu hallere düşmezdim. Thank you. Thank you. شكرا Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ما شاء الله ساو. Ibrahim, ugu dambayntii xirsi magaalada imaan kara oo runtii dalxiis ku fiican waan filayaa xagga islaamka iyo marka aad fiiriso dhaqanka. والله سيدة ورطة ودن كان يعني هو ودن يعني هذا الحسيال بدن ضد بدني أدون كسو قرش قريان يعني هو ودن يعني قديمة أو معروفة marka wax yaana dadku waxay ka aaminsan yihiin horta yaana inagu dad Soomaalihan waxaynu ka aaminsanahay maaha ana wadan islaana oo hadii adoo dambi gashid yaana dambi geysatay lagu qabsanayo laakiin hadda wax dambi gelin ka geysatay u socotay gaari u raacaysa cid ku oran mayso wax sharciya ma haysata waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii qurba joog waxaan idinkaga soo tabinaynay faras magaalaha Istanbul runtii waxaan soo aragnay magaaladan inay tahay magaalo aad qadiimi u ah aadna u qurxan waxaad arkaysaan dalxiiska loo imaanaya shimbiraha waad arkaysaa ama qooleyda hadba ninba siduu u yaqaano waxaan idin leeyahay waanoo ah Saciid Axmed Cabduwaxiid Saciid Nabadoona iyo kaameramanka adduunka Cabdullaahi Afey ama Afey Adduunyo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nolol kulantay oo xiiso leh nabaday